xuska munaasabada sanad guurada tobnaad ee kasoo wareegtay aasaaskii telefishinka Home Cable TV oo lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah xukuumadda Somaliland oo warkacay madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo gudoomiyaha golaha wakiilada shirgudoonka golayaasha qaranka ee baarlamaanka xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaano madaxweyne xigeenadii hore ee Somaliland iyo sidoo kale ardayda jaamacadaha iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay axsaabta qaranka Somaliland waxaana goobta lagu soo bandhigay taariikhda Home Cable TV iyo waayihiisii kala duwanaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo ayaa u hambaliyay telefishinka Home Cable TV waxaana uu ku amaanay sharafta ay dalkooda u soo hooyeen arintaas oo uu ku tilmaamay munaasabadaasi khudbad kooban oo uu ka jeediyay Home Cable TV iyo wakiilihiisu waxay qaranka ay ka mid yihiin xubin weyn oo ka mid ah waxay gaarsiiyeen sida uga warramayeen ama aynu arkaynay ama aynu uga warqabno meelo badan oo dunida daafaheeda ayay gaarsiiyeen waa magac aynu ku faanayno qarannimo waa magac aynu qarannimadeena iyo dadnimadeenna meel walba gaarsiiyey waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan ka soo qayb galo xafladdan waxaan jecelahay inaan ugu hambaliyeeyo sharafta iyo qiimaha ay dalka iyo dadka u soo horeeyeen Farxaan Xaaji Cali Axmed gudoomiyaha Home Cable TV oo madasha ka hadlay ayaa si gaar ah u amaanay shaqaalaha telefishinkiisa waxaanu bogaadiyay dhammaanba ummadda afka Soomaaliga ku hadasha iyo daawadayaasha gaarka ah ee Home Cable TV iyadoo geesta kalena agaasimaha guud ee Home Cable TV Maxamed Cabdi Ilig uu tilmaamay taariikhdii aasaaska Home Cable TV oo ku beegnayd sanadii 2003 waxa uu sheegay inay haatan ka howlgalaan 181 qof oo u badan dhalinyaro isagoo u mahadnaqay shirkadaha iyo kombaniyada ay wada shaqaynta leeyihiin gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ahna gudoomiyaha xisbiga wadani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukusi oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa tilmaamay doorka uu Home Cable ku leeyahay saxaafadda Somaliland iyagoo si gaarana ugu hambaliyeeyay مدن المدحوينة مهرطا أما Home Cable TV وحاي هاي TV وين وسمعت السوماليلاند قيمة ويالا معنى ويالا وحوينا كتر الصحافة إنك الصور كفتبه دتكنا دقيسة مركي ورك حمرية كهريسة سطرة لا يرى يعبا geesta kalena waxaa halkaasi khudbada ka jeediyey gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja mudane Xasan Maxamed Yuusuf iyo Axmed Siciid Cige oo tilmaamay kaalinta uu Home Cable TV ka qaatay saxaafadda Somaliland gabagabadii munaasabadaasi ayaa mas'uuliyiinta telefishinka Home Cable TV waxa ay shahaado sharaf ku doonsiiyeen madaxweynaha Somaliland iyadoo geesta kalena halkaasi lagu abaalmariyay shaqaalihii kala duwanaa ee telefishinkaasi